aniga waxba meelo kale iyo diblomaasiyad iyo nin yahow runta maan kuu sheega adiga nin yahow adigu waxaa tahay islaan nin Ethiopia iska furatay oo maseerku wax walba uu ka hadashiyo wax walba war Ethiopia haddaad doonto jaadka ha cunin haddaad doonto bunkaana ha cabin haddaad doonto carigana iska dhaaf Ethiopia xeerkaasi waxay dhaaftay 100 sano ka hor bay dhaaftay waxaas xilligaa lama taagin Ethiopia hadda adduweynaha ayay la tartamaysa Soomaaliya la tartan way dhaaftay hadda Ethiopia tartan waxay la jirtaa Masar Masarkiiba carraan ku darano iska daa America no more baan dhahnay Amerikadii weyneed no more hadalka ma yeelayn annagaas maamulayna cidnana ma amri karayso war annagu Ethiopia waa wadan duceysan habaarkaaga muxuu naga taraa habeen iyo maalin habaar annaga waxba nagama taraysid iska daa aqoontaada yar ee waxba koomba biyo aan gaadhin oo Ethiopiadan iska dhaaf ku sheegano Ethiopia waxay leedahay dad wax bartay oo aqli leh oo adduunka maamule leedahay wuxuu dhahay oromkan habaarkiina waxba nagama taraayo habaarka joojiya aniga Ethiopia waa tagnay Masar la tartiboona Mareykan la tartiboona qababaca waa aniga afaareen anagu naga saabano oromkaas ay u jeedin aniga ma leeyo soo yaab macnaa wax aan meeshu ku heysin malahan fiiri aniga kuma inkaarin kuma habaarin waxa taaganahay walaaloon dhaaf badeena noo dhaaf dhulkeena noo dhaaf qadiideena noo intaas maaga kir leh waraag daradan dadkan bal ila fiiriya Soomaaliya dhalinyarooy bal waxaan wuxuu ku hadlaayo ila fiiri hadda heer waxay bilaaween dawladii iyo dadkii ku jiray afka la qabtay xitaa waa hadli la ayin dawladana waa Soomaaliya waa hadli la nahay afka la qabtay waa la mudaharaadi la waxay rabaan ay sameeysanayaan badda xitaa waxa maqlaayo maraakiib u diyaarsan badda u soo socdaan dawladii hadda aamusiseen siyaasiyiinta aamusiseen sababtoo baasboor Ethiopian ay wataan anaga baasboor Ethiopian ma wadano waa soo taaganahay waxyaaba oromkaas ka xanaajiyay iyo dadka la mid ah ee commentiga soo galo horta waxa ugu weyn mataqaan iyagu waxay damacoodu wuxuu ahaay Soomaaliya in maskaxda laga qabsado jaahiliin laga dhigo qabyaalada iyo qoranka iyo dulinimada kaliya ee aqoon iyo cilmi iyo waaya aragnimo ee u noqoto si hadda loo fiiriyo way ku guuleysteen Soomaalida hadda million followers iyo balaayad wad meelaha ororta waa aragteen laakiin barnaamij noocan inuu soo bixi doono ayaga ma filaynin oo habeen walbaba baal Ethiopian ay gadinayno fiiri saraan waxyaaba ay ka xaraqsiina ku sheega aabaqlay taariikhda 77 anigana la leeyahay ma joogin waagaas ma dhalanin xitaa waalidkay isma guursan 77 wixii dhacay Ethiopianka in ajabsanay oo ilaa Addis Ababa la qabsan rabay ee ruush ahaan ruush oo naga soo gaar oo ruush oo anagana soo riixay ilaan ayaga xitaa dadka Ethiopianka been u sheegi jireen Soomaalida Ethiopia ku nool Soomaali galbeed lafta ka hor dhalinyarada beena loo sheegay dadka indhaha dhigaha laga qabtay marka runtaan la soo bandhigayo ee xaqiiqdan saaxiibada ay waxay taagan yihiin xanuun waay dhalinyaro commentiga kuwa soo galo aflagaadada oo calanka Ethiopianka iyo waxa meelaha loo orordo waa kaasa ogaada dagaalka waa dhowr nooc ha u maleyneen barnaamijkan meesha soo fadhino xaqiiqda ka hadlayno in wax sahlan ay tahay ha u maleynina dadkan u jeedaan ee af Soomaaliga bartay ee laakiin Ethiopianka habeen iyo maalin ma jiftaan ma hurdaan annagana balan iga qaada dhalinyarada igu xiran sida aniga oo kale hadda barnaamijkan habeen duuba ina soo jeedeeno taariikhda wax ka baranayno dalkeena iyo dadkeena aad difaacina u soo taaganahay ee daba iyo naas iyo waxaas hanoo dambeeyaan markii dadkan isku xoreeno kadib baashaalka iyo qaraxda lagu laabto laakiin waqti xaadirkan anigoo gudoomiyaha SYL number 2 waxaan dhammaan ku wargelinayaa dhalinyarada in heegan la galo oo difaaci dalka gaar ahaan dadka million followers iyo balaayad wato waxaan leeyahay waxyaabihii kale qaraxada ahaa dhinaca riix adoo niikinaysa dambe ku arkin arrimaha Ethiopianka iyo cadaawada socoto ka sheekay soo bandhig ama barnaamijkan si shar garay waa kuwaas cadow waa buuxa